waxaa safar dhinaca badda ah wada galay nin iyo xaaskii markii uu maalin iyo habeen dhan socday markabkii ay saarnaayeen ayaa hirar buura lagu tilmaami karaa ay isku shareereen bulxan iyo ooyin ayaa dhinac kasta ka yeedhay balse waxa ay sii kordheen markii badmaacihii ugu sarreeyey shaqaalaha markabku uu u sheegay dadkii saarnaa in noloshoodu ay halis ku jirto isaga oo kaashanaya raadaarka tilmaamo cimilada iyo halkuu taleefanku gaadhi karaayey doontii haddii ay bilowday inay biyuhu soo galaan ayay marwadii uu xaajigeedu la socday iyada oo ooyaysa u orday xaggii sayigeedu uu ka xigay kadib waxay aragtay ninkan oo aan wax walwal ah iyo muruga ka muuqan waxayna ku tidhi nolosheenna kama fikiraysid iyo dhibka aan ku jirno iyada oo cadho iyo baqdini ka muuqato kolkaas ayuu mindi inta uu soo qaatay rubadda uu ka saaray oo uu ku yidhi kama cabsoonisid miyaa inaan ku dilo markaasay ku jawaabtay iyada oo qoslaysaa waxa aan ku kalsoonahay inaanad i dilayn waayo waxaa tahay qofka aan jecelahay ee aan noloshayda ku aaminay kolkaas ayuu ku yidhi haddaad gacanta tooraydan haysa saas ugu kalsoon tahay ilaahii ku abuuray ee hirarkan gadgadoomaya naga hayaa naftaaduna gacantiisa ay ku jirto maxaad sidaas ugu kalsoonaan weyday